cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ahna kusimaha madaxweynaha somalilan ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyey fadhigii 89aad ee golaha wasiirada somalilan fadhigaasi oo ka qabsoomay xarunta qasriga madaxtooyada waxaana diiradda lagu saaray arrimo kala duwan oo muhiim ah kaasoo ugu horeysa shirku waxaa lagu bogaadiyey gulaha taariikhiga ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wafdiguu hogaaminayay ee booqashada shaqo ku joogay waddanka maraykanku u soo hooyeen dalka iyo kulmadii midhodhalka ahaa ee ay la yeesheen hay'adaha kala duwan ee dowladda maraykanka iyo diblomaasiyiinta sidoo kalena golahu wuxuu warbixin la xidhiidhay amniga guud ee dalka ka dhageystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka gobolada iyo degmooyinka mudane cabdinaasir caydiid isagoo xusay in sugidda amniga dalku meel wanaagsan marayso dhinaca kalena waxa uu golahu warbixin dheer oo ku saabsan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta ka dhageystay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga mudane siciid sulub maxamed oo ka mid ah guddida gurmadka abaaraha waxaanu ku dheeraaday tallaabooyinka muuqda ee ay guddi ahaan u qaadeen sidii dadka iyo dunyaba abaaruhu saameeye loo gaadhsiin lahaa baad iyo biyaba isagoo golaha u sharaxay qorshaha wejiga afraad ee gurmadka abaaraha iyo tallaabooyinka ay xukuumaddu qaadi doonto gebagabadiina shirka golahu waxa uu isku raacay in guud ahaanba la xoojiyo amniga dalka ciidamada kala duwan ee dalka iyo shacabkuna waxa uu ku boorinayaa inay labalaabaan adkaynta amniga waxaa kaloo golahu soo jeediyey dadka muxsiniinta iyo guud ahaanba shacbiga reer somalilan inay ka qayb qaataan howlaha qaran ee gurmadka abaaraha bulshadana la taakuleeyo Khalid Fantastic telefishinka Ariel Hargeysa dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed